oo qabiil feen laga dayo feen waa taqaani hilib waa feenatay ilaan qabiilkii waa lagu soo dhintay laakiin wiil dadaa ku dhaha feenaa ku dhima war feenu kuma dhinne yaa lagu ag dhimanina anaga dhahow hayn marmara waxaa la yiraahdaa salaad dawladdu taageeriya runtii sharaf weyn ay noo tahay maxaa yeelay dawladda hadaadan taageerin waxa kale oo dawlad la'aanay ku geey karaan aad u sharafantihiin runtii bacdallaahi iyo salliga nabiga ka bacdi waxaan u mahad celinaynaa dadka sharafta badan ee igu soo dhaweeyay magaalada London cawadana ma taqaanaa sidaan baaxadda leh oo sharafta iyo karaamada iyo qayimka leh haddana ma taqaanaa waqtigoodii qaaliga ahaa iyo howlahoodii dartay u soo berdareeyay oo markaas ma taqaanaa igu sharfay runtii waxay ii tahay sharaf weyn iyo karaamo aad iyo aadna waa idinkaga mahad celinayaa runtii madaxda kala duwan oo halkan ka hadashay oo ay ugu horeeyaan gabdhaheena sharafta badan oo ma taqaanaa walaashay nadiifa qaran ay ku bilowday abwaanaduna ay ma taqaanaa ay gabagaad ogeedeen booska ragga ay gashay runtii gabdhaha halkan ka hadlay lama soo koobi karo runtii tira kuma gaara halkan aan ku qortay laakiin midba midda kale way ka dareed marka sharaftooda iyo karaamadooda runtii ilaahay ha ka abaal mariyaan leeyahay aniguna mahadaas waa u haayaa dadkiinan ikaraameeyay oo isoo dhaweeyay oo Soomaalinimada ii muujiyay oo wiliba ma taqaanaa mural sabot wax ka sii badan maanta halkan aan kala kulmo maxaa yeelay midaanu waa raasumaale ma ahan mid mural kaliya ah ma ahan wax la hubo waaye runtii ra'iisul wasaarihii hore iyo xildhibaanadii iyo ma taqaanaa dhaqanka sharafta badan warbaahinta iyo fanaaniinta lama soo koobi karo dadka halkan maanta qiimaha ay leeyihiin iyo dhalinyarada funaanada sawirkayga inta ku xiratay hortayda taaga runtii taana oo kale waxaan ka arkay magaalada Cabuud Waaqaa laygu sameeyay markii aan meesha tagay marka aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad idinkugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan maadaama aan London markii ugu horeysa horta oo aan ka imaado dalkii oo aan reer galbeed wadamada reer galbeedka aan imaado waa kow hadda markaan halkan ka bilaabayana hadda waa socdaaho meel walba waa tagi doonaa laakiin markaan mahan ka bilaabayo waa cilmiga asalka reer galbeedka meesho ka farcan ma halkan waay marka Soomaalida halkan joogto waxaan ogahay ama aan aaminsanahay inay cilmiga iyaduna hayso oo dadka ma taqaanaa Soomaaliya maanta inay ku laabtaan oo ay cilmiga geeyaan laga raba inay halkan tahay waa ogahay anigana
sidaa darteed marka aniga oo inaan iskiin bara ay ahayd haddana waa igala hormarteen oo qadirin badan oo aad isiiseen hadda inaan ku naqdo hebelaan ahaan iraado uma baahni sidaa darteed marka London haddii la yimaado sidii loo hadli jira looma hadli karo marka waa in wax uun adiga dawladnimo u eg waa inaan wax ka sheegaa maadaama aan wado xisbi runtii xisbiguna haddee nidaam dawli oo ku shaqeeyaahe sidii qabiilkii argagixisada kuma shaqeeyo waa dawlad aan lacag maamulayn laakiin wasiir uu leeyahay gubernatoor uu leeyahay wixiisa waa kumbud gola dhex uu leeyahay marka xisbi waa dawlad aamusan oo rabta inay qaranka tagto oo ay madaxtooyada fariisato marka xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda maadaama aad barateen idinkoo igu sharfaaya aad idinku ma taqaanaa xisbiga intaanan idiin sheeginba aad idinku hore ka qabsateen horta xisbigu waxaa waaye waa xisbi aan idiin keenay dalkaya dadkaana iska leh qof gaarahu ma leh waa kii aan rabay inay gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ay ku gaaraan in waxa ay rabaan dalkoodina ay ku nabadeystaan kuna taliyaan mustaqbalka marka waxaan rabaa xisbiga waxyaabaha uu aaminsan yahay inaan wax idinkaga taataabto xisbigu wuxuu leeyahay aragti si cad u qeexan taasoo muujinaysa himilada mabaadi'da iyo qayimka uu hiigsanay maxaa yeelay waxaan sharaf rabin horey loo dileen ma ogtahay oo aan meelay u socdaan oo karaamo leh aysan jirin waxa waaye waxyaabahaas waa qabyaaladii iyo argagixisadii mabaadi'dan ma haysa dhowrista dastuurka sarreynta qaanuunka iyo dhammaan shuruucda dalka u degsan taasoo shareecada islaamka ay asal u tahay xisbigu marka waa waxyaabaha uu aaminsan yahay kamid tahay waxaan rabaa inaad hadhow nagu ilaalisiin haddii aan ka leexan hirgelinta ku dhaqanka nidaamka dimuqraadiga ah ee ku dhisan dhowrista xurriyadda muwaadinka iyo xuquuqul insaanka sida xurriyatul qowlka idana xisbiga waxay u tahay mabda'a oo ka duulay maxaa yeelay haddii aan la helin nidaam dimuqraadi ah qofku oona xur ahayn hadde ma taqaanaa sooma saari kariyo waxa uu aaminsan yahay dhisidda hay-adaha amniga sida asluubta booliiska militariga iyo nabad sugidda si loo xaqiijiyo xasilooni buuxda badbaadinta iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed iyo isku xirnaanta gobolada dalka xisbigu saas oo ku shaqeeya number xisbigu wuxuu ahmiyad koobaad siinaya difaaca jiritaanka iyo madax banaanida dalka Soomaaliya maxaa yeelay dal aan xuduudihiisu ayna difaacnayn oo aan kontaroolnayn si uu horumar u gaariyo waa adagta waxa kale oo xisbigu aaminsan yahay hirgelinta garsoorka madaxa bannaan iyo dhismaha qaybaha kala duwan ee hay-adaha cadaaladda sida guddiga adeega garsoorka
iyo maxkamadda dastuuriga oo lafdhabar u ah cadaaladda maxaa yeelay haddii aan maxkamadda dastuuriga samayno qof kasta oo Soomaaliya sharciga ka sareeyaya wayna baqeen laakiin maxkamadda dastuuriga hadaynan jirin cid awood haysata mar walba waxbay milqi kartaa dhowrista iyo hidaha dhaqanka Soomaaliyeed ee suuban iyo ka hortagga waxyaabaha dhaqanka xun na inaan dalkeena ka badbaadino oo aan dhaqankeena suubanay aan lafdhabar u naqano oo ilaashano si aan naloo kaga qasin idana xisbigu waa aaminsan yahay kobcinta dhaqaalaha iyo khayraadka dalka ee Allah ku maneestay ummadda Soomaaliyeed sida macdanta kala duwan batroolka xoolaha beeraha iyo kalluunka iyadoo la soo dhaweynayo maalgelinta iyo suuqa xurta xisbigu saasoo aaminsan yahay marka uu xukunka ku guuleysto halkaas oo u socdaaho rajadaas oo qabiya tayeynta waxbarashada asaasiga ah iyo tacliinta sare caafimaadka fanka iyo isboortiga mabaadiida ayay kamid tahay xisbigu inuu arintaasi ma taqaanaa oo dhiso oo tayadaas oo horumar siiyo xoojinta xiriirka wadamada aan diriska nahay iyo ururada dawliga ah ee aan xubinta ka nahay ama muhiim tahay inaan xubin ka noqono iyagana ma taqaanaa xisbigu waxay ka mid tahay mabaadiida oo ku shaqeynahay 12 ilaalinta iyo u doodista xuquuqda muwaadiniinta si ay uga qayb qaataan go'aanada masiiriga ah ee saameynaya noloshooda maxaa yeelay noloshooda hadii aynan ma taqaanaa ayna qofku waxa dhibaya hadayna ka qayb galin iska difaacin waa lagu fulaa biritana iyadoo madluum ahay ay jooge qarankuna ma dhismaayo qof muwaadin oo hadoo madluum yahay ixtiraamka iyo dhowrista shariicada islaamka taasoo ah aasaaska shuruucda dalka guud ahaan idana waa inaan mar walba ku celcelin hubinta sinaanta muwaadiniinta dhammaan lab iyo dhidig iyadoo laga hortegayo wax walba oo midabta koor ah ee ku salaysan jinsi haybsooc iyo maqaam siyaasadeed intaba xisbigu ma ogolaanayo maxaa yeelay meeshaas ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay innal muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'minaati gabadha iyo saasay waajibaadkooda u qaadayaan marka gabadha iyo wiilku halkaasay ka sameeyeen almuslimiina muslimiinta iyo wal muslimaati gabdhaha muslimaadka wal mu'miniina halkaasay ay acadallahum halkaasay ku dhamaahe marka gabadha laguma riixi karo gabarnimadeeda waa inay hor socotaa ragga oo ay iyadu ma taqaanaa ay noqoto mid wax u citimisa inta iyadu xurriyadeeda dareento xoojinta nidaamka hufnaanta iyo isla xisaabtanka taasoo loo marayo tayeynta hay'adaha dawliga ah
ku shaqada leh ka hortagga musuqmaasuqa iyo boobka hantida qaran idana ma taqaanaa xisbigu wuxuu aaminsan yahay in la isla xisaabtamo oo cidii xoolo dadweyne xadda maxkamadda la geeyo shuruucda loo maro marka taasna waa ka horjeediya abuurista siyaasad isu dheelitiran oo firfircoon ee arrimaha dibadda taasoo xoojinaysa xiriirka wadamada diriska nahay saaxiibada muhiimka noo ah hay-adaha caalamiga ah heer gobol iyo heer guud ahaaneed dunida oo idil xisbigu wuxuu rabiyaa inuu adduunka meel walba oo cilmi iyo xoolayaaliin oo gaaro hadduu xukunka ku guuleysto runtii waxaan rabaa horta xisbigii maadaama aan idin keenoon rabo inaan idinkaga tagoon idin dhiibo ilaa xisbiyaan dadweynuhu lahayn meel gaari ma maxaa yeelay codaa loo baahaa marka haddaan la idin dhiibin marka xisbigu ma noqon kariyo mid taabagala sidaan idinkugu keenaan rabaa marka inaan idin dhiibo ood ogaatiin idoo shuruucdiisana la idin dhiibi doono arrimahaas markaan meeshaas uga baxo oo xisbiga aan arrimahaas uga baxo waxaan rabaa inaan idin sheego arrimaha doorashooyinkana inaan wax idinkaga tilmaamo runtii marmar waxaa la leeyahay marmaraa waxaa leeyiraa salaa dowladow taageeriya runtii sharaf weynay noo tahay maxaa yeelay dowladde haddaadan taageerin waxa kale uun dowlad la-aanay ku geey karaan marka waxaan rabaa dowladdani axsaabta siyaasadeed ayay rabtaa inay dalka caqabad ayna u dhigan waxyaabaha aan anagu ku taageerayno dowladda waxaa ka mid ah haddii xisbiga isbaaro loo dhigto oo qabiil feen laga dayo feen waa taqaaniin hilib waa feenatee ilaan qabiilkii waa lagu soo dhinta laakiin wili dadaa ku dhahaa feenaa ku dhima war feenu kuma dhinee yaan lagu ag dhimanina anagaa dhahow hayn dowladdan marka waxaan heshiis ku nahay inay shacabka ammaanada u celayso shacabka Soomaaliyeed 2021 markii la gaaro ay doorayaan hogaankooda haddii marka qofka Soomaaliga ah uu codeeyo kaarkiisa la siiyo oo codeeyo soo ma ahan inuu hogaanka uu aaminsan yahay soo saaray caqabadii iyo laaluushkii iyo wax kala dabarkii iyo shabaabkii oo ergada amar siihaya waxyaabaha soo dhana meesha ka baxa Soomaali weyn ma la kontroli kara arintaas marka waa mustaqbal wanaagsan oo dawladdu ay qaadatay waadna arkaysiin hadda sharciga doorashooyinka ee muwaadinka Soomaaliyeed kaarka lagu sii hayay golaha wasiirada ayaa baasmareeyo haya sitimaanka soo socda kadibna baarlamaanka u taga wala ansaxa baarlamaankuna waa ansaxa diyaar u yahay kadibna halkaana laydinkugu keenaa inaad codaysiin kaarkiinaad qaadaysiin halkaanaad codka ka ridaysiin
marka xisbiga ka sokow xisbiga haddaa taageertaan marka xaquuqdiinii ayaad helaysiin idinkaana hoggaanka soo saaraya hoggaankii la idin soo saari jiray oo midaadan raalli ka ahayn oo xildhibaan idiin ahaa jiriye waxa waaye hadda idinkaa soo saaraa xildhibaanka idinka ayaguna idinka amar qaadaa oo kii soo baxood soo saartiinna khalad hadduu galo xisbiga ayaa kala naqanaya xildhibaanka haddii uu mabaadi'da xisbiga ku shaqay waayo arrimaha marka doorashooyinka habka doorashooyinkaan rabaa marka inaan wax idinkaga taabo habka doorashooyinka nooca doorashooyinka wuxuu noqonayaa marka koobaad habka xisbiyada badan Soomaaliya nin kasta oo Soomaaliya marka xisbigiisa ayuu ku tartama cid la cilaamale ilaa uu shuruudaha asugu ka buuxi waayo waxa marka nooca doorashaduna waxay naqee mid isu dheeli tiran waxa loo yaqaano proportional representation awood qaybsi siman iyo liis xiran close list marka qofka ma taqaanaa xisbiga u codayha xisbiguna percentage uu ku qaadanaya dalka dhammaantiis doorasho ka dhacay meelaha suuragal meeshi aan suuragal ahayn ma ogiye dhammaantiis doorashadu waa ka dhacay waxaad ogaataan marka inaad arrimahaas aad horta maanka ku haysaan waa arrimihii doorashooyinka iyo xisbiyada amba xisbigan aan idin keenay ood rabtiin inaad ku soo goysaan jiritaankii ummadda Soomaaliyeed iyo badbaadadeedii qabiilka iyo argagixisadana aad meesha uga saartaan xabsiyadan tiga runtii wiilal qurux badan oo Soomaaliyeed oo aad yaabayso timahooda aad isleedahay kuwaanu gibdhamay ka soo xadeen sida ay timuhu u jilacsan yihiin oo yaabayso wax qurux ku dhan aysan jirin oo xabsiga ku jiraan wallahi billahi waa la soo sheekaysta baarka ay xanuun waxaan ku iri goormay kuugu egtahay markaasay ii dhamaahe maxaad qabee aan leeyahay marka inaan ku wadaan rabaahe mayga aqbale wuxuu ku leeyahay shaqadaydii aan ku naqaa ilaahay ognaana been idin sheegay dhibba kuma haayaba meesha dhibba kuma haysta waska qosla horta waxaan idin leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed oo halkaan jooga waxaan aad idinkaga codsanayaa inaad aad ugu dadaashiin ilmaha maxaa yeelay ma dhib yara horta cunug inta jooga ku hayntiisa arrin fudud ma maxaa yeelay kuwaan la sheekaystaan ark waxaan idinka rabaa marka inaad waxaad faraha inaad ku adkaysataan oo ayna sahal idinkaga fakan marka aad iyo aad u mahadsantiin waan idinku dheereeyay xisbigii waa idin keenay idinka maalmahana waa idin jooga waxaan rabaa xisbigaas aan idin keenay waa xisbi Soomaaliyeed inaad faraha ku dhigtiin mana ahan mid aan anigu iska leeyahay waa midaan u sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo Soomaaliya oo ka naxaysa ummadda Soomaaliyeed hadda aniga wakiil waxaan ka soo magacaabay Kismaayo wakiilna waxaan ka magacaabay in meesha la yiraahdo Baydhabo wakiilna xamaraan ka sameeyay midna shabeellada hoosaan ka sameeyay mid jawharaan ka sameeyay mid hiiraan ilaa Boosaaso hal wakiilaan ka sameeyay waxaan ka soo bilaabo Boosaaso Garoowe Gaalkacyo
dhuusamareeb amba galgaduud saasaan u soo wada xagga kismaayo igu dambaysa hadda markii oo aan anigu la hadli tago markaan anigu wici tago baydhabo amba kismaayo aniga nin xisbi igu ah oo aniga iga jecel halka ila dhasha iga jecel aan waca marka wixii awal layga qari jiray layga qari ma karo aniga gudoomiye ku xigeenkaygana waa berbero ilaahay gogolaana been idin sheegay maxamed ibraahim cagaale ilmo adeerihi marka waxa waaye haddii xisbi la sameeyo qof ilaahay abuurtay oo meeshi dhibaata ka jirta Soomaaliya ka qari kara ma jiriyo laakiin marka hore haddii abgaal lay arkaya war ii sheega haddii gobolada koonfureed lay arkaya war ii sheega adiga meeshan waxa waaye xisbigu dadku midayhaya Soomaaliyo midayha waxaan noqonaynaa marka xogta gabar hadii wax laga hadleeyo waxa ku soo sheega xisbiga ku soo sheega aad uma adsantiin حبكينا تقدراني تاجر ولينا وما تسنتين